Si no le ayuda a la fábrica, el camión no está. daawadeel muuqaalkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay xariif reer galmudug ma ka mid tahay daawadayaashana daawanaya ee ka midka ah reer galmudug haddii aad ka mid tahay koob shaha soo qaado dhegeyso sheekada gaaban ee qosolka badan reer galmudug oo la gacan baridiin taagay xariif reer galmudug ayaa waxa uu sameeyay meherad uu hore u fadhiisan jiray waa laga yaabaa in hore u fadhiisan jiray sababtoo ah reer galmudug waa laandheer weeye xariif reer galmudug ayaa waxa uu sameeyay meherad uu hore u fadhiisan jiray maalmaha ka mid ah soo fadhiistay ogow oo la soco meheradana gabadh ayaa haysata gabadh noocay doonto ayay ahaanaysaa oo kale waa qalanjo ma filaya sababtoo ah in reer galmudug oo laandheera baa soo fadhiistay meheradii uu fadhiisan jiray ninkan ogow wuxuu leeyahay labada fool buu leeyahay labada fool markuu leeyahay wuxuu soo fadhiistay meheradii uu fadhiisan jiray ee qalanjadu ay haysato dabeetana waxa uu ku yidhi isagoo ma garanaysa ay isjijabinaya oo qaama samaysanaya qurxey xabiibi waan qoyay markaasuu haddana istadraaciyo musuu yidhi intuu weliba iscajabiyey ma hadaladayda ayaa dareen iyo jacayl iyo kalgacayl iyo qaama ku geliyey allahayaay gabadhii ayaa waxa ay la yaabtay waxyaabahan uu sheegayo iyo ninkan maadaama marka ay wejigiisa ay eegayso waxay arkaysaa ninkan in laba fool leeyahay moogta marka ninkan laba fool buu leeyahay halkaas ayaa yara waashay waana xariif waana reer galmudug waa laandheere laakiin labada fool waxay waalaya gabadhii waxa ay la yaabtay ninkan hadallada uu leeyahay jawaabtay balbixisaa in eegno waxa igu jawaabtay may waxaan la yaabay markaad hadallada sheegayso ama aad wax igu odhanayso ama aad hadallada ileedahay aniga caliyada ayaa kaa daadanaysa sida awgeed caliyada aadan la yaabanaa waraxaasma wax nin lagu idhaahdaaniyo Si no le ayuda a la fábrica, el camión no está. Estuve dando mi saco y me caí al suelo.